بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داود الملك السؤال جوكتان ومركل iyo barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka oo hadahan oo kale aad ka daawataan marqaati TV. taariikhdu waxay ku beegan tahay 2 bisha July sanadka 2025. daawad barnaamijkeena qaybtan waxaynu si gaar ah ugu eegi doonaa Iran oo qalinka ku duugtay dagaal ka dhana Israa'iil iyo Mareykanka. madaxweynaha Iran oo saxiixay sharci gabi ahaanba hakad gelinaya iskaashiga la leeyahay hay'adda tamarta atomikada ee adduunka. maxay tani keeni doontaa maxaase ka dhalan kara barnaamijka ayaynu ku falanqeyn doonaa. sidoo kale daawada barnaamijka waxaan idinku soo gudbin doonaa Bismillahir Rahmanir Rahim. No one exactly knows what has transpired in Fordo. That being said, what we know so far is that wasiirka arrimaha dibadda Iran oo waraysi uu bixiyay ku xaqiijinaya in duqeynta Mareykanka ay waxyeello soo gaarsiisay xarunta nukleerka ee Fordo. waraysiga oo dhameystiran isla markaana tarjuman ayaan rabaa inaan idinkula wadaago barnaamijka. xogo badanna waa uu kaga hadli doonaa iyo qorshaha Iran ee ku aadan haddii mar kale la soo weeraro ee soo dhawaada. dawada fadlan nagu soo biir muuqaalka share gareey aragtidaada waa muhiim qaybta hoose ee commentiga ku reeba mahadsanid. barnaamijka ayaynu guda galeynaa. warbaahinta Iran ayaa waxa ay sheegeen goordhow in madaxweynaha Iran Mas'ud oo si rasmi ah u saxiixay sharci joojinaya iskaashiga Iran ay la leedahay hay'adda caalamiga ah ee tamarta atomikada IAEA kadib dagaal socday 12 maalmood oo ay Israa'iil iyo Mareykanka ku qaadeen weerar ka dhana xarumaha nukleerka Iran. xildhibaanada baarlamaanka Iran ayaa maalmo ka hor u codeeyay sharci lagu joojinayo wada shaqeynta Iran iyo hay'adda IAEA iyadoo 221 xildhibaan oo kamid ah 290 oo baarlamaanku ka kooban yahay ay u codeeyeen sharcigaas sida uu sheegay telefishinka rasmiga ah ee dawladda Iran. telefishinka dawladda ayaa soo xigtay gudoomiyaha golaha shuurada islaamiga ee baarlamaanka Mohammed Bagir oo sheegay in hay'adda caalamiga ah ee tamarta atomikada oo diiday xitaa in ay cambaareen xadidan ku samayso weerarkii lagu qaaday xarumaha nukleerka Iran ay lumisay kalsoonidii caalamiga ahayd ee lagu qabay. waxa uu yiri sidaas darteed hay'adda tamarta atomikada ee Iran waxay si buuxda u joojin doontaa wada shaqeynta ay la leedahay hay'addaas IAEA ilaa iyo inta laga xaqiijinayo ammaanka xarumaheena nukleerka. barnaamijkeena nukleerka ee nabadeed wuxuu ku socon doonaa si ka dhaqso badan sidii hore. sidoo kale wakaaladda wararka ee ESNA ayaa soo xigatay Cali Reza Salimi oo ka tirsan guddoonka baarlamaanka isagoo sheegay in sharcigan uu dhigayo in la mamnuuco in kormeerayaal ka socda hay'adda tamarta atomikada lagu soo dhaweeyo gudaha Iran ilaa ay jirto damaanad buuxda oo lagu xaqiijinayo amniga xarumaha nukleerka ee dalka. geesta kale go'aanka madaxweynaha Iran ee uu ku ansixiyay sharcigan waxa uu yimid xilli ay sii kordhayaan baaqida ku aadan in dawladda Iran ay yareyso balanqaadadeedii la xiriiray heshiiska mamnuucidda faafinta hubka nukleerka NPT gaar ahaan kadib weerarada ay Israa'iil iyo Mareykanka ku qaadeen xarumo nukleer iyo sidoo kale kuwa ciidan. dhanka kalena agaasimaha guud ee hay'adda caalamiga ah ee tamarta atomikada Rafael Grossi waxa uu sheegay in beesha caalamka aysan aqbali karin in la joojiyo kormeerka lagu sameeyo xarumaha nukleerka Iran. waxa uu xusay in dib u bilaabashada wada shaqeynta Iran ay la leedahay hay'adda ay muhiim u tahay xalinta khilaafaadka ku saabsan barnaamijkeeda nukleerka. wuxuuna muujiyay diyaargarowga kormeerayaasha hay'adda ee ay u leeyihiin in ay shaqadooda ka qabtaan gudaha waddanka Iran. waxaa la xusuusan karaa in Israa'iil ay 13 Juun weerar cirka ah oo ay taageerayso Mareykanka ku qaadeen gudaha Iran taasoo socotay muddo 12 maalmood ah. weeraradaasi waxa ay ku beegsadeen goobo ciidan, xarumo nukleer iyo sidoo kale xarumo rayid ah. sidoo kalena waxaa lagu dilay hoggaan ciidan iyo saynisyahanno nukleer ah. Iran waxay ku jawaabtay iyada oo gantaalo plastic ah iyo diyaarado aan duuliye lahayn ku beegsatay saldhigyo ciidan iyo kuwa sirdoon oo ay Israa'iil leedahay. dhanka kale qobarada amniga waxa ay sheegayaan in go'aanka madaxweynaha Iran uu ku saxiixay mamnuucista hay'addan ay la micno tahay isaga oo saxiixay dagaal culus oo lala galo Israa'iil iyo Mareykanka maadaama haddii aan lala socon dhaqdhaqaaqyada nukleerka iyo waxa ka haray nukleerka Iran ay keeni karto in mar kale Mareykanka iyo Israa'iil oo haddaba qorsheynaya weerar ka dhana Iran in ay soo dedejiyaan weerarkooda. Iran waxay u muuqataa mid ku adkeysanaysa go'aanadeeda iyada oo sidoo kalena Iran la sheegayo in dhammaan hubkeedii uu badbaaday marka loo eego duqeynta culus ee Mareykanka uu fuliyay. waxaana sidoo kale la sheegayaa in ay suuragal tahay 2 bil ilaa 3 bil gudahood Iran in ayba ku soo saari karto hal bam oo nukleer ah taasoo haddii ay dhacdo isbedel weyn u keeni karto jihada guud ee bariga dhexe. sidoo kalena aan lagu soo degdegi
degdegi karin dowladda Iran. Iran waxa ay sheegtay in mar walba ay ku adkeysanayso in ay sii wadato horumarinteeda uraniumka weliba qaab nabadeed, waxaana ay tilmaantay in mar walba oo dhankeeda tallaab qaldan loo soo qaado iyaduna ay tallaab hore ugu sii qaadayso in hamigi ay u bedesho in ay ku samaysato bambaanooyin nuclear ah, taasoo haddaba la aaminsan yahay in Iran ayba kol hore diyaarisay inkastoo weli natiijo sax aan laga keenin. weeraradii Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen gudaha waddanka Iran dhammaantood waxa ay noqdeen kuwa fashilmay maadaama ay gaari waayeen godka hoose ee ay yaaleen qalabka uraniumka ee la nadiifiyay ee gaaraya ilaa iyo 60%. sidoo kalena waxaa jirta waxyeelo soo gaartay xarumaha ee lagu sameeyo nuclearka, laakiin marka laga soo tago burburka dhismayaasha ma jirta ilaa iyo hadda diiwaangelin rasmi ah oo ku saabsan in qalabkii halkaasi yaalay gabi ahaantiisa ay waxyeelo soo gaartay. bal markana daawadayaal aynu eegno wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi ayaa wareysi u siinaya shabakada CBS News waxa uu ku qiray in duqeyntii Mareykanka uu la beegsaday xarunta nuclearka ee Fordow ay dhibaato weyn iyo burbur ba'an u geysteen xaruntaasi, waxaana uu sheegay in wareysigan oo si rasmi ah loo baahiyay uu ku sheegay in Iran markastaba ay diyaar u tahay in ay isdifaacdo, waxaana uu tilmaamay in xilli walba Iran ay ka go'an tahay sidii loo difaaci lahaa dal iyo dadba. haddaba waxaan rabaa wareysigan oo lagu baahiyay CBS News isla markaana xuquuqdiisa ay leedahay shabakadaasi in aan soo koobo nuxurkiisa isla markaana aan turjubaan kooban ku sameeyno wareysiga. ugu horeen wasiirka waxa wariyuhu uu weydiiyay su'aal ku saabsaneed dowladdu waxay shaacisay in shaqooyin farsamo oo degdeg ah laga bilaabay dib u furista xarunta Fordow. waa maxay xaaladda hadda ee Fordow? wasiir Araghchi waxa uu ku jawaabay Bismillahirrahmanirrahim. No one exactly knows what has transpired in Fordow. That being said, what we know so far is that cidna si dhaba uma ogaan karo waxa saxda ah ee ka dhacay Fordow, laakiin waxaan ognahay ilaa iyo hadda waa in xarumahaasi si weyn u burbureen. hay'adda tamarta atomikada ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran waxay hadda wadaan qiimeyn iyo falanqeyn. warbixintaas ayaana loo gudbin doonaa dowladda marka ay dhameeyaan. wariyaha ayaa weydiiyay su'aal kale oo ku saabsaneed sidan: ma awoodaan kormeerayaal Iiraani ah in ay galaan xarunta Fordow mise weli waxaa jira isku daya ah in ay gali doonaan? wasiirka waxa uu ku jawaabay waa hay'adda tamarta atomikada ee Iran ee ka jawaabi karta su'aasha, sababta oo ah iyaga ayaa hadda gacanta ku haya baaritaanka iyo qiimeynta halkaasi ka socota. wasiirka waxaa kaloo la weydiiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si cad u sheegay dhowr jeer in xarumaha nuclearka Iran la baabi'iyay intii lagu guda jiray weerarada Mareykanka. haddaba miyaa la baabi'iyay xarumahaasi? Araghchi waxa uu yiri waxay u muuqataa in si daran oo weyn loo burburiyay. si kastaba ha ahaatee waxaan doonayaa inaan caddeeyo in aanan helin xog sax ah oo dhammaystiran oo ku saabsan heerka burburka. waan inaan sugnaa ilaa warbixinta rasmiga ah laga helayo si loo ogaado haddii ay suuragal tahay in dib loo furo xarumahaasi iyo haddii ay dib u shaqayn karaan. waxaa la weydiiyay wasiirka madaxa hay'adda IAEA wuxuu horey ugu sheegay CBS News in Iran ay si degdeg ah u bilaabi karto ururinta uraniumka dhowr bilood gudahood. ma taas ayaad adiguna aaminsan tahay? wasiirka waxa uu yiri qiimeyntaas waxay ku salaysan tahay heerka aqoonta farsamada ay Iran haysato. Iran waxay leedahay warshado dhanka uraniumka ah oo gudaha ah, ma aanan ka keenin dibadda. tiknoolajiyad lama duqeeyo, saynisyahan iyo aqoonta lama burburin karo weeraro darteed. sidaasi darteedna haddii uu jiro rabitaan waa uu jiraa in aan horumarino warshadahaasi. waxa aan si dhaqso ah u hagaajin karnaa burburka, waana soo celin karnaa waqtigii lumay. cidna maanta ma sheegin in xarumihii ay weli taagan yihiin, laakiin tiknoolajiyadda iyo aqoontu weli waa ay jiraan. waxaa la weydiiyay wasiirka adigoo aanan qalad ii fahmin, hadda Iran miyay awood u leedahay in ay uraniumka kobciso weliba dhowr bilood gudahood? taasi ma samayn doontaan? wasiirku wuxuu yiri waqtigan xaadirka ah waxaan ku jirnaa marxaladda qiimeynta ah kadib gardaradii Israa'iil iyo Mareykanka. waxaan dhisaynaa siyaasado cusub. runtu waxay tahay in wax badan aan u hurnay kobcinta warshadahayada ee uraniumka. saynisyahanadeennu wax badan bay qabteen, dadkeenuna wuxuu u dulqaadanayay culaysyo badan 20kii sano ee lasoo dhaafay, sanado oo ay Iran saaran yihiin cunaqabateenno adag oo ay sababtay barnaamijkeeda nabadeed ee nuclearka. dacwadayadu waxay hortimid golaha ammaanka ee qaramada midoobay. saynisyahanadeennu waa la dilay,
xarumaheena nukliyeerka waxaa ka dhacay falal xun sababta oo ah hadda barnaamijka nukliyeerka ee nabadeed ee Iran wuxuu isku bedelay arrin sharaf qaran waxaan hubaal ku siinayaa in beesha caalamka iyo dalalka arrintan daneeya in barnaamijkeena uu ahaan doono mid nabadeed waxaan sidoo kale ku xusuusinayaa in waxaasi oo dhan lagu daray dagaalkii lagu qaaday Iran muddo 12 maalmood ah marka la eego wax walba oo dadka reer Iran ay u hureen barnaamijkan dadweynuhu si sahal ah uma joojin doonaan uraniumka ama kama tanaasuli doonaan si kastaba oo ay noqoto waxaan mar kale adkeenayaa in barnaamijkeena uu ahaanayo mid nabadeed waxaan sidoo kale xusayaa in sida uu dhigayo fadwada ee uu bixiyay hogaamiyaha sare ee kacaanka islaamiga ah ee Iran hubka nukleerka wax boos ah kuma laha aragtida amni ee jamhuuriyadda islaamiga Iran waana si cad oo diin ahaan xaraan u ah ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Iran haddaba daawada maxay kula tahay adigu aragtidaada qaybtoose commentiga inoo ku reeb mahadsanid barnaamijka ka xiga intaan ku kulmayno nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh